militariga dalka Pakistan ayaa shaacisay inay si guul ah ku dhamaatay tijaabada gantaalada ugu horeeyay ee ridda dheer ee badda hoosteeda ay lagu rido gantaalada oo loogu magac daray baabuur 3 oo gaari kara ilaa 450 kilomitir ayaa qaadaya madaxyada hubka nuclearka sida uu xaqiijiyay afhayeenka la hadlay wakaalada wararka ee FIB ra'iisul wasaaraha Nawaz Sharif ayaa ku tilmaamay natiijada uu muujinayso guusha Pakistan ee tiknoolajiyada iyo isku filnaanshaha Kashmir ee qaybta Hindiya oo kacsan si kastaba ha ahaatee dadka arrimaha amniga falaqaynta oo sheegaya inay talaabo sare ka qaadi karto khilaafka u dhaxeeya Hindiya iyo Pakistan labada dal ayuu saddex dagaal ku dhexmaray tan iyo markii ay xorriyadda qaateen 1947 sidoo kale Pakistan iyo Hindiya ayaa gantaalo kala duwan samaystay tan iyo intii markii ay hubka nuclearka samaysteen ee 1998 Hindiya waxay 2008 tijaabisay awoodeeda nuclearka ee badda hoosteeda sanadkii 2013 ay sidoo kale tijaabisay gantaan nooca ridada dheer Kashmir oo lagu dilay 14 askari Pakistan oo Hindiya ku eedeysay duqeyn Hindiya wali kamaysan hadlin tijaabada cusub ee Pakistan ay ku samaystay Kashmir Pakistan ayaa meel aan la shaacin badweynta Hindiya kamid ah ku tijaabisay madfaca daawadayaal ku xidhnaada Las Media